فرح سؤاشاس waa wareegto farqiga u dhaxeeya hal abuurkii hore Soomaaliyeed jiray iyo qoraa ama fanaan wuxuu doonaa ahaado iyo kuwa maanta jooga maxaad nooga tilmaami kartaa bismillah waxaantii horta hal abuurka Soomaalidu si kuwii hore uu la mid yahay laakiin waxaan aaminsanahay in kaalintiisii laga qaaday oo xoog loo sheegtay waliba aan la ogeyn kaalintii waxa qaatay maxaa idaacadaha iyo niman imika la yiraahdo afhayeenada lama magacaabo wariyaasha saxaafadda oo deegaanada naga mid ah laakiin ayaa meesha ka saaray sababta waxa weeyaan haddii hormoodku uu noqdo arday waxa aad yar la yaabo rabixinta waxa soo jiray abwaanay ahayn idaacadaha waxa isku barjisay abwaanay ahayn waxay ahayn maxaa aasaaskeenay ahayn maxaa umada u baahan in la wacyi geliyo abwaanka ayaa dhexraac jiray ana qoraha noqdo ama noqdo abwaan noqdo ama noqdo xilmaado kala noqdo dadka noocaas bay ahayn laakiin ilka waxa hadii loo yeeraba mar leeyahay kale maxaa xaflad baan kale noo rawaayay oo noo shacab aan yani entertainment aan kugu yar aan ku daadaawan waxaad muddo ka hooseeyo deegaankaas taageerayba marka afkii lamaya hadii maanta ay weydiiyo Soomaalida maanta meel kasta joogteen maxaa ay ku leeysan tahay tageena weydiin karaan afka Soomaaliga in lagu hadlo ayaa mid ku madeysatay mal abuur marka mar hadii afkii Soomaaliga ahaa oo qoran lagu madeysan yahay xitaa diintii lagu kala fogaaday oo maxaa siyaasadda lagu kala fogaaday oo maxaa waxyaabo lagu kala fogaaday hadii afkii qoran lagu madeysan yahay waayo qof kasta maanta inuu Soomaaliga ku hadlo ku qasbay dadka afka macalinka wax oo la tixgeliyo oo loo baneeyo maxaa wadadooda oo maxaa la maalgeliyo gobol soo saaraysa waxa uu talagalay inuu muddo dheer umada wacyi geliyo ilaa qorida ka dubtay xukunayaan deegaanadaas waxa baraha ahaaye ama warbay moodayeen gabayga aan duuba maanta aan u duuba milyan doonayeen lagu soo celiyo madowga galaan doonayo marka la warbo ahaaye markii shalay lagu daranayo laga tuura sirey madu qaadanaysa marka muu qoro ee laba ibsan waayo marka waxaan ku wacyigelin umada Soomaaliya shacabka waxaan ku codsaynaa biyo wana baro jagada laga qaaday taxnoo soo celiyo laakiin in la maado la yahay wax ma laga qaban maaha waan qabanay mar walba waan taagnayn dadka ama ha noqoto dhibaato gaajo ama ha noqoto dhibaato dagaal ama mid siyaasad ha noqoto ama mid qurbo ha noqoto mar walba kulay anigu iyo Xuseenba waan aragtay halkan ku jirnay mar walba difaac ku jirnay ama difaacin aad baad u mahadsantahay Xuseen su'aalka gadis su'aashaas waxaan ognahay in siyaasiyiintii wadaadadii iyo aqoon-yahanadiiba ay kooxood isu urursadeen oo ay aad u sareeyaan waxaad moodaa in ay banaan tahay kaalintii bulshada ay kaga jireen hal abuurka iyo qoraaga iyo fanaaniinta iyo saxaafadda waan dhigi karnaa maxaa sababaad is oran kartaa kala daadsanaanta saameysay isku xiraan la'aanta haysata hal abuurka iyo fanka Soomaaliyeed برنامج horta su'aashan hadda waxa uu leeyahay aan weydiisay runtii hore ay isku dhow yihiin oo ma kala foga laakiin way iska muuqataa way iska cadaayay Faarax Murtilna hadda waa ku sheegaya wuxuu ku sheegay waa ruuyi laakiin rumaantii waa sida anigu waxaan aaminsanahay hees ama wadaniga ama gabay ama qoraal qoray waxa weeye waa wax cilmiyeysan oo ma garanaysaa dhadhan leh oo haddaan raashinka haddii la kariyo aan suugo lagu darin cunadan dab loo shidin lagu daadan milixii ilaa kaama degato haddaan cunada aan la suugaynin macnaha suugaan micnaheedu waxa weeye wax la qurxiyey haddaysan wuxuu aysan lahayn luqadu dhadhan badan ma yeelanayso mujtamacu dareen badan ma yeelanayo wadaniyadu xataa way ku yaraanaysaa jacaylka laftiisa ayaa gabaabsi tagaya aroosyada laftooda ayaan yeelanaynin waxyaalo badan ayaa jira marka sidaa daraadeed runtii ummadda Soomaalida ahi markay arkaan aad bay runtii noo qadariyaan laakiin markay doonayaan xaflada inaan ama aroos uga tulno ama meel xaflada aanu wax sameeyno xakeen inay midoobi waayaan oo raadiyaan midnimadii habkii hal abuurkii wallahi runtii
faaraxadda meel buu uga jiraa fanka anna fanka meel baan uga jiraa waan isjecelahay aniga isagu runtii inkastoo dadku ay saaxiibo haddana yihiin haddana ma arag anigu dad fanaan ku colaadinaya ma garanaysaa ama waxaa tahay reer qansax ama wax la mid ah amaba ma garanaysaa adigu fanka ugu darsan mahayo labada qof bilaadanka way isdareeri karaan laakiin weli habka ma garanaysaa ay u bilowdeen dagaalada iyo wax la mid ay ummadda ku kala tageen iyo adigu waxaa tahay qoladaasaan hay fanka ayaana isku darsan iyo anigu sheekada horta weli ma aanan maqal laakiin meesha aan joogno waad aragaysaa kii wadankii joogana wax daryeelaya ma jirto dowlad daryeelaysa iyo hay-ad daryeelaysa iyo maamul daryeelaya xataa ma jiraan waa uu dhiban yahay dadka isaga ugu gaajo badan isaga faysal cumar mushtaag baa ka mid ahaa dadkii runtii gaajada u dhintay baa ka mid ahaa xaqiiqiyan kuwa kale haddaan hadda laga gaarin waxay noqonayaan ayaguna sidoo kale cabdi tahliil wadageed intuu ku rafaadsanaa inkastoo mar dhow la qaaday waad garanaysaa ninka la dhihi jiray bacalwaan xuseen qalex faysal xanuun buu dhintay maya micnaha waxaa keeni kara haddii la daryeeli lahaa oo la daweyn lahaa micnaha waxa weeye gaajadu ma ahan gaajadii cunnada ahay maaha waxaa laga hadlayaa cudurku wuu jiitamaya haddaan la daweynin qofka waa qof gaajo la dhintay cudurkii oo gaajo ugu dhintay aad baa mahadsantahay xuseen xildhibaan ma maqashaa xildhibaan siyaasiyiintii waa israadsadeen wadaadadii waa israadsadeen aqoon-yahanka waa israadsadeen kaalintii halabuurka iyo qoraaga soomaaliyeed baa meesha ka maqan maxaa sababay inay israadsan waayaan maxaa keenay kala daadsanaanta saamaysay halabuurka iyo fankii soomaaliyeed duraan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa badin yar inaan ku xusuusiyo qaybaha bulshada soomaalida halganka ugu jirta hanaan xasiloon oo mar kale ka hana qaada guud ahaan dhulka jamhuuriyadda soomaaliya qaybaha ugu horeeya inay yihiin abwaaniinta fanaaniinta qorayaasha soomaalida maxaa yeelay iyagu wax aan ahayn aan caawa hadal hayno malaha shafkuladii ka dambeeyay burburkii qarannimo ee dalkeena soomaaliya in hanaanka kooxaysiga ee ka hana qaaday soomaaliya uu ahaa mid sarreeyey maadaama halganka kooxaha la magacaabayo ama abjeestay uu ahaa wax burburin si ay u gaaraan hamigoodii ahaa ka qaybgalka hogaanka dowladnimo ee dalka ay dagaaladu aaseeyeen ee soomaaliya taas ayaana keentay in burbur lixaali uu ku dhaco guud ahaan ama ka dhaco guud ahaan daliga soomaaliya waa si allaha u naxariistee alwanaagshir nuur faarax bacalle uu yiri bisha admigay leeyihiin ficilna duurjoogta waa waayeel jecel wixii diinta inay ka diirtaane dajani iyo khayr lama tuso waa ka diriraane dabciga riigiday leeyihiin mana dareemaane dadna uma ogola caanahana kama durdurtaane fanaaniinta iyo qorayaasha soomaalidu ay kama noqonin burburkii qarannimo ama burburka qarannimo ee jamhuuriyadda soomaaliya ee weli soconaya sababaha keenay in ay ka noqon waayaan ama u tartami waayaan ka qaybgalka dhinaca siyaasadana waxaa keentay amiirkooda oo siin waayey in qaybaha bulshada soomaalida ee dhibaatoonaya ay hogaamiyayaal u noqdaan halkii badbaadadooda ay ka shaqayn lahaayeen waxaan nahay baraarujiyayaasha bulshada soomaalida xildhibaan waa mahadsantahay waan kugu soo noqonayaa aad baad mahadsantahay farax waa isla su-aashii siyaasiyiintii waa israadsadeen aqoon-yahanadii waa israadsadeen maxaan ku dhahaa wadaadadii laftirkooda waa israadsadeen waxaad moodaa kaalinta halabuurka iyo fanka soomaalida inay meesha ka maqan tahay oo uusan jirin wax midayn ah ma walba xabadkaliyaal meel la jooga sida adiga xuseen xildhibaan oo kale marka maxaa sababaad is leedahay israadsan la-aantaas horta mid aan kala saaro abwaanada iyo fanku iyo fanaaniintu waa kala laba kala qaadno horta abwaanku waad xusuntahay abwaanku imika haddii aniga iyo xuseen iyo abwaanada la isu keeno inaan higalka dee isla raacni mooyaan laakiin waxaa run ah loo daynayaa in mid qori uu ruwaad keeno ama uu keeno barnaamij keeno markaa taa waxaad ogaanaysaa abwaanada midayn uma baahna maamul baa midayn u baahan waxaad xusun tahay wadankii markii waa beri ay jirtay waa beri oo dhami hal hees hal abwaan hal yani ruwaayad oo abwaan qori leeyahay ayay ka wada shaqayn jireen marka abwaanada wala imika ilaa maxaa loo midayn waaye kambaliyada dee kambali hebel iyo kambali hebel iyo kambali mid walba alkiisu ku yahay kambali alkiisu ku yahay wixiisu wax soo saarkiisu leeyahay laakiin waxa weeyaan dadkii waxaan ka qaadayay fanaaniinta ahaa musicianka ahaa mutaliinta ahaa dadka waa u baahan in la mideeyo laakiin macquul maaha abwaanada qasab isku in dalada la yeesho fiican tahay laakiin waxaan ku leeyahay marka horeba
isaa loo kala garto weeyaan cidda mudanta u baahan ee hormoodkaahi waxa weeyaan in maamul mideeya abwaanada la helo oo dawladna iyagu waxay helayaan tusaale yar baa ka dhex galaa marka aan topic ka wadan ku sheegay hal-abuuradii Soomaaliyeed sidii deelaydi iyo kala iyo silsiladaha jiray macnaha oo ay iswadaarsanayeen marka kama wada qaab siyaasadeed inay israadsadaan laakiin maadaama dhibkaani uu jiro hal-abuuradii Soomaaliyeed ma awoodi waayeen in ay aragtidooda ku gudbiyaan iyagoo midaysan hal wado waan ku gudbinaa oo inta aan gudbinaa aragtida way caddahay oo markasta waan ku soo gudbinaa aragtida waxaan sheegay umada Soomaalidu sheegay markasta joogtay aan hore u sheegay haanay gabayadu hadal lagu shubaayo murti lagu helaayo bulshadii xaraada lagu soo horaayo eraygii halaaba laga soo helaayo hilkeeda weeye allo hiiliyoy higaad weeye gabayadu ubad lagu habaayo hadal lagu baraayo hooyada u tiriso bulsho horumarkeedii hanaankeeda weeye allo hiiliyoy baan leeyahay aad baa umahadsantahay haddaan wax ka dhex galo waxa weeye micnaha su-aasha haddaan lafteeda aan kasii aan isku dayo kale waxa weeye waxaa tiri nimankii wadadadii waa isku tageen waxa weeye wadadadu iskuma tagsana waad ogtahay adiguba siyaasiyiintuna iskuma tagsana run ahaantii xaqiiqiyan horna markaana ku hadalno siyaasi jecel maanaan arag wadadadu waa artay intay farqan yihiin qaar waa kuwa dirinaya xabadda rido dadka laynaya qaar waa kuwa aamusanon juuq dhahaynin oo dhahaynin kuwa waa qaldan yihiin qaar waa kuwa masaajidada uu magaranaysa dhisayo dhibka dadka ka qayb qaadanaynin waxa weeye macnaha xumaan waxaasoo dhan baa iska jira siyaasiyiintii waa sidaasoo kale anigu waxaan aaminsanahaaba dadka ugu nadiifsanba inay yihiin dadka suugaanta iyo qorayaasha inayba yihiinba dadka ugu ron dadka aad baa umahadsan